hagaag daawadayaal markana waa barnaamijkeennii falanqaynta jimcaha ay dabcan ku saabsanaa qadiyadda markaasi aan doonayna inaan ku qaada dhigno ee arrinta ku saabsan dalkaasi Turkiga waxyaalaha lagu doortay dalkaasi Turkiga xilliga waxa la yiraahdo hiigsiga Turkiga 2023 iyo waxa uu hiigsanay daawadayaal horta aynan horta gelin hiigsigan 2023 iyo qadiyadda ka dambaysa iyo waxa Turkiga uu doonayo sida rasmiga ah inkasta oo ay wali caqabado jiraan haddana bal in horta dib u jaleecno isla markaana ay dib u eegno taariikhda dalkaasi Turkiga gaar ahaan waxyaalaha isbedelka xooggan ee dalkaasi Turkiga ka dhacay ugu horeyn intaynan war kale eegin horta sanadkii 1917 ilaa 18 ugu dambeyn ilaa 1920 waxa loo tirinaya xilligii ay afka ciidda darsatay isla markaana ay si rasmi ah u burburtay awoodii ugu dambeysay ee dunida uu ku lahaa caalamka islaamka ama dawlad islaami magaca wadatay Isbaaniyadu tan iyo intaas hadeerto markii sanadku uu gaaro 2023 waxay noqonaysaa 100 sanadood intaas dalka Turkiga wuxuu soo maray mawduucyo iyo dabcan waxyaalo kala duwan ama marxalado aad iyo aad u adag dalka Turkiga tan markii uu ka soo baxay xukunkii Isbaaniyada isla markaana xukunkii Isbaaniyada oo badankeedii afka ciidda u dareen iskaashatadii reer galbeedka iyo Carabta oo dabcan ay u badnaayeen dadkan boqortooyooyinka hadeerta haystay ee dadkoodii wali sii joogaan ay sii raaqraaqsan yihiin markaa boqortooyooyinka trabeelka ay dalalkan jasiiradan Carabta ka jira ay u badnaayeen kaashanaya dawladii Great Britain ama dalkii Britania loo jiray iyo waliba dalka reer galbeedka ayaa ka dameeyay in dawladda Isbaaniyada si rasmi ah looga guuleysto waxyaalihii ololayaashii lagu kiciyay markaasi wuxuu ahaa qadiyado ku saabsan markaasi in dadkan Isbaaniyada hogaaminaya aysan ahayn dad Araba ah oo dabcan aysan ahayn dadkii u suban ka soo jeeday isla markaana ay tahay in talada laga tooro inkastoo aysan diinta islaamka meelba kaga jirin in loo nisbeeyo dardaarankii subanahana ay kamid ahayd tusaale ahaan inaan la isku nisbeynin midab la isku nisbeeyo sida dadku u kala ay dabcan u kala diin badan yihiin ama aqoonta diinta ugu kala horeeyaan in jagada iyo xukunkuba u noqdo hase yeeshee olole noocaas oo kale reer galbeedku soo alifay oo markaasi xukaamta hatan boqortooyooyinka raadkoodii uu joogo ayaa dalkaasi Turkiga ka dhacay ama dabcan dawladda Isbaaniyada afka ciidda u daray marka wixii dalkaasi loo gaaray waxaan idin sheegi doonaa wixii intaas ka dambeysay dalkaasi Turkiga bal waxyaalaha waaweyn ee dalkaasi uu soo maray waxaan ku bilownay dalkaasi waxa qabsaday ama xukunka la wareegay ninka loo yaqaan Mustafa Kemal Atatürk waa naanaystiisii oo dabcan naanaysti loo yaqaanay dadka Turkiga u yaqaaneen waxaana af Soomaali ahaan ay noqon kartaa Atatürk aabihii Turkiga ayay noqonaysaa waa macnaha hadalkaasi ninkaasi markii uu qabsaday jagada dalkaasi isla markaana uu xukunka qabsaday gabi ahaan horta wuxuu laalay ama uu joojiyay wax kasta oo ku saabsanaa raadadkii Isbaaniyada ee islaamiga salka ku hayay sida sinaanta wuxuu yiri dabcan sinaanta dadka oo la jeedo dumarka rag inay siman yihiin ayuu sheegay waxbarashada dumarku in ay galayaan iskuulaadka oo ay wiilasha la aadayaan sidoo kale insan khasab ahayn isla markaana ay dumarku ay daadi karaan xijaabka iyo dabcan waxyaalaha dabcan isasraada sidoo kale wuxuu aad u la dagaalamay doorkii culimadii diinta ee markaasi afkaarta Isbaaniyada ee markaasi ka sii noolayd isla markaana wuxuu yareeyay dhammaan saameyntii ay ku lahaayeen dalka wuxuuna ku soo rogay amarro culus in masaajidada iyo dhammaan goobaha cibaadada oo dhan dawladdu ay maamusho ay gacanta ku dhigto wuxuuna dastuur cusub oo dalkaasi ama charter uu sameeyay iskii ah uu ugu dhawaaqay in dalku uu yahay dal islaami ah oo islaamiyadu ay ka jirto balse aysan ahayn dal islaami ah arrintaas waxay soo jiidatay reer galbeedkii awalba doonayay in gabi ahaanba la tuuro oo talada gabi ahaanba la dhexdhexaadiyo ama laga saaro saameyntii ay islaamku ku lahaa dalkaasi iyo waliba dunida oo dhan oo si xooggan loo yareeyo isla markaana dhaqanka kale loo soo waxyaalaha markaasi loo maleynayo inay u jeeday dalkaasi inuu ku biiro xataa gaashaanbuurtii NATO sanadkaasi 1952 ayay ururka loo yaqaan North Atlantic Treaty Organization ee NATO loo soo gaabiyo ayuu ku biiray dalkaasi sidoo kale waxa lagu dhawaaqay waxa isdaba jooga intii uu Atatürk talada haystay looga dhawaaqay isla markaana looga sheegay raadiyaha dalkaasi iyo waliba idaacadaha dawladdu gacanta ku haysay awaamiiro iyo digreetooyin waaweyn oo marba mar ka dameysa la yaabay waxaana la laalayay mar walba qorshe ama sharci la xiriiray diinta islaamka ama dabcan ahaa mid logic ah dalkaasi in la tuuro oo la laalo waxyaalahaas oo dhan waxa loo sameeyay markaas la xididisiibo dhamaan waxyaalihii ama haraadigi
muujinayay wax kasta maartay shacaarta islaamka ama dabcan ah wax kasta oo haba yaraatee raad ku yeelan kara in dadkaasi ay mar ahaayeen dad muslimiinta ah oo sharciga islaamka ku dhaqma ama lagu dhaqo dalka gebi ahaan ama guud ahaan. taasi waxyaalaha yaab kale uu Ataturk sameeyay ama dalkaasi uga tagay waxaa kamid ahayd militariga ayuu wuxuu u dhiibay awoodda dalkaasi wuxuuna 15 sanadood ayuu dalka xukumayay Ataturk wixii inta ka dambeeyana wuxuu u dhiibay awoodda uu yiri wuxuu ugu yeeray ilaalinta mabaadi'da masiiriga ah iclaamiyada ah buuri dalka waxaa mas'uul ka ah ayuu yiri ama waxa loo yaqaan iclaamiyada in la sii ama iclaamigu inuu wadanka xog si lahaado oo aan diin la'aanta af Soomaaliya hadii lagu sheego oo aysan diintu ku haysan shaqo kule waxa loo yaqaano iclaamiyadu wax aan diintu haba yaraatee aysan shaqo ku lahayn oo diinta islaamka laga saaray oo dabcan ka madax banaan oo dabcan wax aadanay asteeyay ama soo saaray dhaqan aadanay lagu maamulo dalka oo sharciyo iyo ahdiyo dabcan iyo wax la isla afgarto wax loo yaqaano isafgarasho bulsho oo kale waxyaalahaas kale la sameeyo wuxuuna arinta gacanta u galiyay oo u muuqatay in arin dardaaran ah 15 sano oo dalkaasi xukumayay kadib dhimashadiisa xataa militariga dalkaasi ayuu siiyay awood wuxuuna ugu yeeray ilaaliyaasha dastuurka dalka iyo qaranka taas waxay keentay in ay dhowr jeer ay dalkaasi u ka dhacay afgambi military kadib markasta oo ay qabsadeen loo maleynayay inay u janjeeri karaan in ay xagga xukunka ay la xiriiriyaan xagga diinta ama ugu yaraan ay dhaqankan cusub iyo waxyaalahan ay westigu ama galbeedku ay riixayaan dalka laga saaro sanadii 1960kii iyo 1971 1980kii iyo 1997 waa afarta jeerba dalka waxa ka dhacay afgambi military 2016 isku day afgambi military ayaa ka dhacay dhowr jeer oo kale ayaa waxa fashilmay waan ahayn 2016 kaliya aan ahayn dabcan waxa dhowr jeer oo kale ayaa afgambiyo noocaas kale ama ay dhisoobeen ama si kale ay maartay ay meesha maartay uga baxeen markastana xukuumad kasto meesha ka jirtay xataa hadii uusan afgambigu uusan dhisoobin ama afgambi uusan dhicin waxay ahaayeen kuwo u ah maqaarsaar militariga u ah ama dawlad aan awood badan lahayn ra'iisul wasaare aan awood badan lahayn fulin badan xoogan aan lahayn ra'iisul wasaare aan ahayn nin aqoon diimeed leh inta badan galbeedka wax ku soo bartay ama ka maran aqoonta diinta ama yaraatay aan abateed u haynin inuu dhageysto dadka ahlu cilmiga ku ah ama diinta islaamka aqoonta u leh ama doonaya in dhaqankii dib loogu noqdo arintaasi waa arimihii yani iyo raadadkii uu Ataturk uu ka tagay waxa yaalaha yaab kale dalka waxa uu xor ka noqday ama xor laga dhigay waxa laga dhigay gabdhuhu inay isqaawiyaan ayaa caadi ka noqday khamrada in dalka caadi loo soo galiyo loo soo iibgeeyo ayaa caadi ka noqday waxyaalahaas oo dhan ayaa dalka markii hore ka jiray wuxuuna dalku iska ahaa dal reer galbeeda ama dhaqanka reer galbeedka ka jirto arintaasi waxa kale oo jiray dad arintaasi ka hadli jiray mar walba oo waxa jiray gabayo sida gabaygii caanka ahaa ee uu tiriyay Siya Gobkal sanadka 1912 oo xilliga Isbaaniyadu in la soo gilgilayay gabayadaas ayaa aad loo isticmaali jiray oo dadka hatta marka ay waayeen hatta kutub ay Carabiga ka akhristaan oo lagala dagaalamay waxa ay isku maaweeli jireen gabayadii nimanka Islaamiyiinta ama dadka aqoonta leh ay runtii ay ku gabiyi jireen iyo wilgooyinka ay tiri jireen waxa kamid ahaa gabayga caanka ah ee Siya uu tiriyay sanadkii 1912 markaasi tudciyadii ugu muhiimsan ahaayeen masaajidadu waxay yihiin goobaheena wanaagsan manaaraduhuna waxa weeye waxaanu ku faanno muslimkuna waa iimaankeena sidoo kale waxa kale oo gabay kamid ahaa in muslimada iimaankeedu ay tahay in loo noqdo askari waxyaalahaas oo kale ayaa gabayadaas kale isku maaweeri jiray arimahaas waxa si yaab leh iyadoo oo loo dabooli jiray isla markaan loo diriri jiray laakiin waxa yaab noqotay in sanadkii 1994 inuu soo baxay nin markaasi dhalinyaro ah oo runtii oo markaasi aad ugu kakan runtii inuu dabcan waxyaalahaas ama gabayadaas dib u soo nooleeyo 1994 waxa maayarka degmada ku guuleystay duqa magaalada aan yiraahdo Istanbul Recep Tayyip Erdogan wuxuuna tiriyay gabayga laftiisa ayuu tiriyay maalmaha kamida maalintii la doortay ama maalintii ku xigtay ayay ahayd markuu gabaygaas tiriyay runtiina waxa markiiba laga dheehday in ay ka soo jiijiileedahay arin kale 1997 oo duqa ka tagay ayay ahayd markii ugu dambeysay ee dalka howlgal military ama afgambi military guuleysta oo ka dhacay tan iyo waxa
wixii ka dambeeyay waxa uu aasaasay ururka loo yiraahdo Ekipart oo la hindisay 2000 waxaana si rasmi ah ururka loo aasaasay ama ururka cadaaladda iyo horumarinta waxaa si rasmi ah loo aasaasay 2001 waxaana runtii tan iyo intaa wixii ka dambeeyay ururkaasi saldhig looga dhigay in uu ururku ku shaqeeyo soo nooleynta islaamka iyo dabcan in mabaadi'dii islaamka iyo waliba meeqaamkii muslimka uu ku lahaa ama diinta islaamku ay ku lahayd ee dalka la soo cesho oo dabcan dalkaasi Turkiga oo 96.3 waa muslimiin oo dalkaasi waliba sunni ah waxaana ay xiyalaha isbedelka xooggan ee wadankaasi uu ka dhacay mar uu talaabo u soo qaadayay Turkigu ama xisbigan uu soo qaadanay waxaana markii ugu horeysay uu Erdogan uu xoog saaray iyo ururkiisa Ekipart waxay xoog saareen in ay dhalinyarada dalkaasi ay marka horeysa u noqdo targetkooda ama yoolkooda uu noqdo isla markaana ay ku higsadaan ama ku beegsadaan dhalinyarada in ay aad ugu booriyaan dhalinyaradu in aysan dhaqanka reer galbeedka qaadan isla markaana loo celiyo dhaqankii islaamka iyo kii Turkiga saxda ahaa taasoo muddo dheer aan ku qaadan dalkaasi Turkiga marka loo eego muddo ku dhow 80 sanadood oo dalku uu dhibaato noocaas oo kale ku soo jiray ayaa haddana arrintaas waxay noqotay arrin runtii markiiba ururkaasi uu ku yeesho shacbiyad aad u xooggan waxyaalaha uu la soo banbaxay markaasi isbedelka waaweyn ee Turkiga ka dhacay inta adan soo hooriyo madaxweyne Erdogan uu sameeyay isla markaana uu ka bareeray reer galbeedkan uu ganafka ugu dhiftay waxa ka mid ahaa kuwii ugu dambeeyay hadaynu soo qaadano waxa ka mid ah horta marka horeysa inuu ururkaasi uu sameeyay laga soo gurana in uu tan iyo intii markii uu ka dhamaaday xilkii ra'iisul wasaarenimada labada jeer ahaa uu qaaday olaha loo yaqaano dabcan in madaxweyne uu noqdo taasoo uu ku guuleystay haddana markii bishii Abriil 2017 ayaa arrintii ugu weyneed ee uu sameeyay waxay ahayd markii uu yiri codka aftida ah ee dastuurka loo qaado waxyaalaha ugu waaweyn reer galbeedku uu dastuurkaas ama aftida loo qaaday uu ku qoonsadeen waxay ahayd in la sameeyo madaxweynaha oo markaas isagu madaxweyne uu noqday oo ra'iisul wasaarihii jagadiisii uu ka dhamaatay madaxweyne isku bedelay in uu yiri waa inuu madaxweynuhu awood buuxda yeeshaa ama executive order-ka waxa loo yaqaan afka qalaad lagu yiraahdo awoodda fulinta waxa loo yaqaano kadibna waxyaalaha uu sameey karo ay tahay inuu baarlamaanka kala diri karo in uu go'aami karo miisaaniyada dalka in uu sameeyo wax ka bedeli karo madaxweynuhu oo amar fulineed wax ka bedeli karo xilli waqtiyeedka madaxtinimada iyo in uu sidoo kale baarlamaanka marka uu doono shir degdeg isugu yeeli karo inuu dalka gali karo xaalad degdeg in uu militarigu isaga hoos yimaadaan inuu magacaabo dhammaan garsoorayaasha oo marka hore la dooro jiray qaarkoodna siyaabo kale maxkamadda sare iyo baarlamaanku ay u ansixi jireen isagu balse inuu soo doorto waxyaalahaas oo dhan ayaa reer galbeedku ka 2014 bishii November ayuu arrin kale oo yaab leh ku dhawaaqay isla markaana wuxuu si toos ah ugu dhawaaqay in aysan diinta sal ku lahayn qadiyada oranaysa ragga iyo dumarku waa siman yihiin wuxuuna yiri arrinta inta badan dalkan Turkiga halqabsiga looga dhigtay ragga iyo dumarku waa siman yihiin waa arrin ka soo horjeeda ayuu yiri qaabka dadkan marka horeba u sameeyay asal ahaan oo dabcan uusan sameyn ayuu laba ruux oo yani masa ninka ayuu qaab egyahay iyo wuxuu ka hadlay waxa loo yaqaan creation ama yani qofka sida loo asteeyay ayuu markaas ka hadlay wuxuuna yiri arintaasi ma aha buu arin diinta sal kule tusaale ahaan wuxuu diinta islaamku waxa ay cadaysay ayuu yiri halka ay dhigtay haweenka waana hooyanimo ayuu yiri waxaana arintaasi aad uga jawaabay reer galbeedka oo dhan balse dhig jalab muusa siin waxyaalaha kale ee uu sameeyay yaab kale ninkaas intuu madaxweynaha dalkaasi ka ahaa waxa kamid ah in uu gabi ahaanba iska diiday in uu u hoggaansamo awaamirta reer galbeedka marka ay timaado qadiyada ku saabsan waxa loo yaqaan shanta dal codka fiitada qayaxan leh wuxuuna dhowr jeer golaha ammaanka qaramada midoobay ka hor sheegay in adduunku shan ka weyn yahay waxaana inta badan uu daadifeeyay qadiyadahaasi wuxuu sidoo kale xoog waxyaalaha inta badan aynu saarano waxa weeye waxyaalaha isbedelka dalka Turkiga xagga dhaqaalaha ayaynu dabcan ku soo dari doonaa xagga militariga ku soo dari doonaa sidoo kale waxyaalaha markaas yaab kale ee dalkan lagu yaabay isla markaana khatarahan uu dalkan ka badbaaday ayaa waxa ugu weyneed kacdoon si fudud ku bilowday 2013 oo ka bilowday deegaan magaalada Istanbul ku yaala oo meel yar oo dabcan meel loogu talagalay marka hore in dadku
ay ku nastaan oo beer ah oo geesi la yiraahdo oo dabku inta badan dadku ay isugu yimaadaan waa geesi back oo ku dhow fagaraha Taksim bay aad iyo aad ugu dhowdahay ayaa waxa la sheegay in la dhisayo dhismo laga dhisayo halka dad badan ba ka soo horjeestay banaanbaxaasna wuxuu isku bedelay mid markaas kacdoon ku noqday dawladda oo runtii xaaladda gilgishayba waxaana loo maleynayaa in ay kamid ahayd isku dayadii reer galbeedka ay wali dadka markaas ka soo horjeeday Turkiga ay doonayeen inay xilka si fudud uga tuuraan Erdogan arintaas si kastay noqotaba iyo daaladhac xooggan oo ka yimid iyo waliba dhaleecayn ka timid iyo awood xad dhaaf oo lagu eedeeyay booliiska ugu dambeyntii way ka guuleysteen dadkiina waa la kala diray waana la qanciyay arintiina dib baa loo dhigay hase yeeshee arintu muddo socotay arintaasna aad bay beesha caalamka iyo waliba waxyaalahan reer galbeedku aad arinta ugu dhaleecay isku daygii 2016 ee military waxaa loo maleynayay inuu ahaa mid uu guuleysan karayay oo dalal badan iska kaashadeen sida la aaminsan yahay inkastoo Turkigu aysan cidna magacaabin haddana waxay sheegeen in dalal cadow ay arinta ay ka dambeeyaan mana jiro dal isagu soo bambaxay oo arinta runtii ka hadlay ama taageeray hase yeeshee taageerada reer galbeedka ama gaashaanburta NATO ay Turkigu ka filayeen ma aysan helin wadamo badan oo Carbeedna kama aysan helin taageeradii iyo waliba isbarortaagii xilligaas kala dooriyay waxaana la aaminsanaa inuu ahaa qorshe aad iyo aad loo soo abaabulay balse u guul daraystay u dhicisoobay marka waxyaalaha fajicsada ah ee dunida cusub ee aan la ilaawi karin wuxuu ahaa markii arintu dhacday madaxweynaha waxa telefoon u dirtay gobadh ka shaqeysa TV-ga la yiraahdo CNN Turkey oo ayada markii hore lagu khasbay inta qori lagu la qabtay ayadoo joogtay studio-ga lagu khasbay inay sheegto in dalka la wareegay ayaa waxa khadka telefoonka toos u soo galay ama ay soo gelisay markii askartu ka baxday madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo markaasi Izmir ku sugnaa isla markaana asaga laftiisa farci jiray kaga baxsaday howlgal doonayay lagu qaarajiyo isla markaana diyaaradaha F-16 ka dalkaasi Turkiga ay soo galbiyeen ayaa markii uu intuusan ka soo bixin hotelka oo gabadhaas waxay ku soo xidhay FaceTime ayay ku soo xidhay wuxuuna yiri 4-5 jumladood oo dadkiisa way kula hadlay wuxuu ku yiri waxaan soconayaa waxaan ay dadku sameynayaan waa khiyaanoolayaal iyo wali qaran dumisyaal waxay sameynayaan waa ficilo laga soo abaabulay dibadda waxaan codsanayaa dadku inaysan seexan soo baxa aynu sugu nimaano fagarayaasha Istanbul iyo waliba fagarayaasha kale ee waaweyn ee dalkeena ee Ankara ka mid tahay isla markaana aynu ka hortagno tuugta isla markaana ay qabanno ciidanka militariga ee saxda ah ee wadanka rigliga ama joogtada ahna arinta shaqo kuma laha in yar kadib ama 10 daqiiqo waxa lagu qiyaasay kadib waxa buuxsamay wadooyin waxa la garan waayay dadku cir iyo dhul meesha ka yimaadeen waxaana la kala kasi waayay dadka iyo wuxuu inay dad yihiin iyo inay biyo yihiin ayaa la kala garan waayay waxa lagu khasbay ciidamadii move-ka sameeyay ama durkayay yani maartay ii sheeg dilandiloonayay in la joojo dhamaan hubkii cuslaa ee ciidanku wateen ayaa la hareereeyay shacab ayaa la wareegay wadooyinka dadka qaar baa jiifsaday qaar baa is hortaagay yani waxa dhacay wax lagu tilmaamay mucjiso rabbaani ah oo yani kor ee ka maamulayay iyo ciidan yani aynan arkaynin waxyaalo ay ka dambeeyeen oo ah marka la soo koobo waxa la oran karaa gaal iyo islaamba waxay isla qireen marka arintaas ay ka hadlayaan inay ahayd waxa ay gaaladu u taqaano miracle ama waxa loo yaqaan mucjiso oo yani waxaan la fili karayn in dad inta leeg oo ay soo baxaan hal mar 10 daqiiqo gudahood isla markaana social media Facebook iyo Twitter iyo YouTube-ka iyo Instagram-ka meel walba qof walba wuxuu share gareeyay hadalkii madaxweynaha waxaana lagu tilmaamay maalintaas in ay daawadeen marka caalamka la isku daro ugu yaraan baa 3 bilyan ama 4 bilyan oo qof inay daawadeen hadalkii madaxweynaha Erdogan ee adduunka kala jooga waayo waxa share gareeyay baa la yiri inta badan inta qof ee access u leh ama ay suurtagalnimo u tahay inay internet isticmaalaan ay dalkaasi Turkiga ama qof kasta oo fahmaya af Turki qaarkood ay joogaan dibadda qaarkood dalal kale ku dhaqan yihiin ama dalal kale oo xataa af Turkiga ku hadla oo dabcan adduunka ku yaala ayaa aad u share gareeyay kadibna qaar baa sii turjubay Carabiga lagu sii turjubay luqadaha Englishka Faransiiska Ruushka ayaa lagu sii turjubay hadalkiisii adduunka oo dhan buu wada gaaray kadibna magaalooyinka waxay noqdeen dalkaasi Turkiga ku ibuux dhaafiyeen shacab markaasi aan inaysan yani nafba ku jirto aadan moodaynin oo ayagoo miyir la qof walba uu soo taagay wadada isla markaana qaarkood xataa ay wajaheen bawrtan gaashaamada loo yaqaan kaarayaasha oo silsiladaha jiita yani qofka hadii ku joogsadaan aan hilibkiisa aan cad xitaa laga aasal helaynin ama shiiday yani waxay ahayd waxyaalaha ay ku quusteen ama adduunka ku qudra qaatay isla markaana laga yaabay arintaas waxay dhicisay hawlgalkaas la doonayay dalka in afka ciida looga diro waxyaalaha kale ee la yaab kale ee dalkaasi ka qabsamay waxa
kamid ah arinta ku saabsan ama ahayd yani sida looga jawaabay arinta looga jawaabay uu ka faa'iideystay Erdogan wadanka waxa ku sugnaa ururo badan oo ugu weyna ururkan FETÖ la yiraahdo ama dhaqdhaqaaqa FETÖ oo ahaa urur marka hore heshiis la ahaa AK Party isla markaana ahaa qayb suufiya ah ama suufinimada aaminsan inkastoo hadda culimada suufiyadu ay iska madax baneeyeen oo nimanka cambaareeyeen haddana waxa yeeshay niman xagga diinta u janjeera oo marka loo eego dalka Turkiga dadka yani diinta loo tuhmayay ahayd halka dalka Turkiga uu gaaray ayaa dalka aad ugu xooganaa xagga waxay u badnaayeen booliiska maxkamadaha iyo qareenada ayay aad ugu badnaayeen waxaana runtii uu madaxweynuhu dhowr jeer yiri dalka kama jiri doonto waxa uu ugu yeeray laba dawladood oo isku hoos jira ama dawlad ka hoos nool arintaas waxa uu madaxweynaha Turkigu ama Erdogan urkiisu waxay heleen fursad ay kaga faa'iideysan karaan hadii ay ka dameeyeen iyo hadaysan ka dameynba wuxuu xididada u siibay dhaqdhaqaaqaas isla markaana wuxuu u adeegsaday shacbiyada iyo wuxuu adeegsaday militariga iyo booliiska iyo laantii sirdoonka MIT oo iyaduna aad iyo aad aysan wax shaqo ugu lahayn isla markaana loo badinayo inay ahayd xitaa laamihii markaasi yani runtii dabcan fududeeyay in laga hortago dhaqdhaqaaqaasi isla markaana waxyaalaha yaab kale ee uu sameeyay waxa kamid ah waxyaalaha uu mamnuucay Atatürk ee uu Erdogan uu fasaxay ayaan rabaa inaan dib ugu roqdo waxa kamid ah ninkan uu fududeeyay waxa kamid ah in khamaarka uu laga mamnuucay dalkaasi ama foodada gabdhood madaxis ka xidhan dawladdan cusubna waa ay soo celisay isla markaana waxa sidoo kale adkaatay in dalkaasi la geliyo khamri ama loo iibgeeyo aad baa loo adkeeyay waxaana la aaminsan yahay xataa in kolleejyada iyo iskuulaadka jaamacadaha kuwa high schoolka marka laga tago in xitaa laga cabi jiray khamriga ama laga heli jiray cafeteriadiisa in laga heli jiray ayaa xitaa la sheegi jiray waxyaalaha kale ee yaab kale waxa weeye masaajidada ayaa la madax baneeyay isla markaana waxa loo madax baneeyay cid kasta oo culimada ka tirsan inay si madax banaan masaajidkeeda iyo diinteeda iyo sida ay doonayso inay maamusho dugsiyada iyo sida barashada diinta islaamka loo fududeeyo waxyaalaha kale ee markaasi aan wali la ilaawin yaab kale waxa weeye madaxweyne Erdogan hadda wuxuu sameystay qorshaha 2023 in dadka aqoonta leh islaamka qaarkood iyo waliba qaar dadka aqoonta u leh culumta islaamka iyo taariikhda islaamka waxay tibaaxaan mar walba in aysan jirin in dhibaato 100 sano ay ku jiraan dad islaam ama dunida islaamka ay 100 sano dhibaato aysan ku jiri kareynin yani eebana aan looga baran sidaas waa terminology-ga aynu oran karno yani waan ku fasiri karnaa asaas ama erey bixinta baan saan dhihi karaa marka baxdiga iyo qoraalada aynu sameeyno marka dad badan oo Turki ah oo ka tirsan ururkan ayaa waxay sameeyeen baaritaano diinihii hore iyo diinta islaamka sidoo kale waxay ogaadeen in dadka yahuud ka mid tahay aysan 100 sano ka badan aysan ama dadkan dhibaatada xoogan wada cid kasta dhibaato xoogan wada haday doonto haba ahaato yani cid doonto ha ahaatee aysan intaasi si riqriqi doonin waxa marka ayagu ay conclusion ku sameeyeen ama ay soo hooriyeen in 100 sanadood ee dawladda Ismaaniyadu maqneed 100 Turkiga iyo caalam islaam oo dhan u dhibaato ku jiray xataa hadeertadan ayay aaminsan in Turkigu inay wali dhibaato ku jiraan waayo waxay leeyihiin ilaa hadeerto dal u madax banaanaa kara inuu diinta islaamka uu isku maamulo oo uu danihiisa ku fashado ma jiro sida daraaddeed waxay ku leeyihiin wali dhibaatada baa lagu jira dal u madax banaanaa kara inuu ganacsigiisa ka madax baneeyo waxyaalaha diinta ka hor imaanaya ma jiro waxay ku leeyihiin dad u madax banaanaa kara in ay siday doonaan ugu tadawuraan diintooda oo si madax banaan ugu tadawuraan ma jiro marka sida daraaddeed waxay ku leeyihiin 2023 marka la gaaro waxaan isku diyaarinaynaa inaan hoggaanka caalamka qabanno isla markaana qorshaha iyagu uu noqdo qorshe guuleysta oo dabcan xagga eebana ay rajo ka qabaan xaggoodana ay isku diyaariyeen oo iyagu ay leeyihiin dadaalkii aadanaha laga rabay dhulka jooga waanu sameynay intii eebana waan rajeynaynaa inkasta oo ay wali jiraan talaafooyin xoogan oo ay kamid tahay qanjiifadii ugu dameysay xataa laga yaabo in ay dhaawacday hamigoodaas lacagtii euro crisis ka ahayd dabcan marka la eego waxaan loo yaqaan conspiracy ama waxaan loo yaqaano dabcan barefurka ama waxaan loo yaqaan khiyaanada Turkigu inta badan dalalka khiyaanada badan hadeerto khiyaanada badan ma ahayn boqolkiisana ugu dameysay Turkigu xataa
iska daa wax kale xitaa dalalka reer galbeedka wax khiyaano ah ama wax maaragtay ii sheegeen uu ku sameeyey ma jiro inkastoo dalalka reer galbeedku ay ku eedeeyaan inuu ku meel gaadhay haddana waxaan ka hadlaynaa inuu afgambiye ka qayb qaatay dilal qorshaysan inuu dalku geystay in dalal kale lagu duulo uu ka shaqeeyey inuu dowlado afgambiyey in yacni la sameeyey dil ama toogasho ama sumayn waxyaalahan hadeerto ay dalalka islaamka iyo dalalka kale dalkaasi ruush ka mid yahay iyo dalka maraykanka iyo dalal kaleba ay sameyn karaan ama ku suurtooda dabcan ay sameeyaan dalkaasi turkiga lagama aqoon sidaa daradeed waxay ku leeyihiin yacni waanu samirnay samirkaygana hadeerta ayuu jooga waxyaalaha markaa ay sameeyeen waxaa ka mid ah isballaarin dhinaca militariga ah oo ay bariga dhexe ay goobo ka samaysteen oo ay ka samaysteen dalkaasi suudaan xagga afrika soomaaliya ayay saldhig ku leeyihiin inkastoo saldhig tababar ilaa hadeerta uu ku magacaaban yahay laakiin dabcan waa saldhig uun turkigu leeyahay dalka qatar ayaa ciidamo lixaad leh ka joogaan dalalka balkaniska ku yaala ayuu dalku haatan isku ballaarinayaa dalka dabcan Syria iyo dalka Ciraaq ayaa ciidamadoodu saldhigyo waaweyn ku leeyihiin waliba Ciraaq laba meelood afar goobood baa la hubaa inay ciidamo xoogan u joogaan halka Syriana ama saddex ama laba aysan ka yarayn oo ay qadiyado badan ka leeyihiin waxay xidhiidh iyo calaqaad xoogan leeyihiin wadamada Carabeed badankooda wadamada Carabeedna ma jiro dal isku soo mutaxay ilaa hadeerta Turkiga inkasta oo Turkigu uu tuunsan yahay in dalal badan oo ka jira ay jiraan haddana aan wali arintaasi aan cadaynin haddana si kastaba ha noqotee Turkigu wuxuu taagan yahay hadeerto meel ilaa xad uu aaminsan yahay inuu joogo xilligii hoggaanka adduunka u dhufa lahaa madaxweynaha dalka Turkigu dhawaan wuxuu si cad u sheegay in uusan jirin dal kale oo u diyaarsan isla markaana haatan uu maaragtay u cimaamadan inuu qabto hoggaan كعالم الإسلام سلام كان أودبه ومركل واقع يوليه وحلا كلا تمنيه ذلك تركيا وحلا كتمنيه إسكابا يرتاي أيو يري إن كستو عربته أي خلادات أتريان دولة عثمانية ده أما حكم كعثمانية ده أو أيضا أي طبعا تركيا حاجة تركيا كنا أي رهدان إن الدين إسلام كإفافية أو ضل بدنا يروى قبتين أو إيشيا أي جارسية أو أي البحر الإسلام كأدون كنا كفاف في سي عثمانية ده هذا عربته وهم بيفرق وتك ولبا ضلك إمارات كيسعودي وحي aad uga cawdaan xilligii xukumayeen magaalada Madiina iyo magaalada iyo deegaanada jasiiradahan Carbeed ayay wax sheegaan hase yeeshee Turkigu haatan boqolka sanadood ayuu sugayaa bal waxa ay ula soo dhalato iyo waxa ay dabcan ay noqoto runtiina ilaa hadeerto dal isku dumi kara dalalka oo dhan ma jiro salahan Turkigu xataa cilaaqaadka uu leeyahay kasakow dalalka Carbeed ee goosgooska haddana xataa dalkan Iran ee Carabadankeeda aysan isku sanbanaanayn ama dalalka Carabta ugu turturdaro aysan isku sanbanaanayn ama isku wanaagsaneyn soo xiriir wanaagsan buu leeyahay waana waxyaalaha uu leeyahay hoggaanka caalamka islaam waan qaba karnaa oo wuxuu Turkigu aaminsan yahay in arinta ku saabsan Carabta iyo xataa ama Sunniyiinta iyo Shiicada ay tahay arin xataa ay wada yeelan karaan wax loo yaqaan common enemy ama cadow guud ay wada yeelan karaan oo dabcan waxaana aad u sii xumaanaya ama aad u sii wiiqmaya xiriirka Turkigu la lahaa wadamada galbeedka xataa Israa'iil waayo Turkigu markii hore wuxuu ku soo nabad iyo caanamaalay waxa loo yaqaan zero problem policies ama istaraatiijiyada istaraatiijiyada dhinaca siyaasadda ee dib la'aanta taasoo hadeerta Turkigu xilligu isku falaanshaha gaaray hadeerta uu dalal badan bus ku leeyahay waxaana muuqata si kastaba ha noqotee in Turkigu uu ama sidoo iyagu rajeynayaan ay wax badan rajeynayaan 2023 xagga tiknoolajiyada xagga militariga xagga dhaqaalaha xagga yani saamaynta intaba dabcan waan eegi doonaa daawadayaal amaanal